السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتيدا قيمة iyo qadarinta mudan waxay ahayd maalinimo Sabti ah Oktoobarna 19 ahayd 2024 qodobada wararkeena caawa ugu xiisaha badan ku soo qaadanayna waxa kamid ah maxaad ku ogtahay xawaashka loo diro dalkaasi Djibouti meelaha uu ka yimaado Soomaalidu sadoor intee leegay ku leedahay wax soo saarka qaybihiisa kala duwan iyo inay keento suuqa wax lagu kala iibsado warbixin ayaan idinka haynaa sidoo kale warbixinadeena waxaan ku soo qaadanaynaa dabka kacay magaalada Addis Ababa xarun loo dhisayo dadka waayeelka iyo dhimirka oo la xakameeyay intaasi akhyaaray waa qodobada wararkeena caawa ugu muhiimsan haatan ku soo dhawaada iyagii oo fidsan aan ku bilaabay xawaashka loo dirayo dalkaasi Djibouti oo la diro maalinta Sabtida iyo sidoo kale Salaasada lagana diro duleedka magaalada Diridhabe ayaa waxa la keenaa wax soo saarka qaybihiisa kala duwan oo inta u badan ka yimaada deegaanka Oromiya iyo sidoo kale ilaa deegaanka koonfurta Itoobiya Soomaalida wax soo saarkeeda ayaa aad u liitay isla markaasina wax soo saarkaasi ayaa waxa qaybo kamid ah halkaasi la keenaa iyadoo la oran karo waxa xaruntaasi laga diray xawaashka ay Soomaalidu ka faa'iideysataa boqolkiiba 10% wax ka yar haddaba goobtaasi xawaashka looga diro dalkaasi Djibouti oo ku taala duleedka magaalada Diridhabe iyo Shinila u dhaxaysa ayaa waxa halkaasi aan kula kulanay dhalinyaro kala duwan oo wakiil u ah dadka ay u diraan eheladooda xawaashka dalkaasi Djibouti waxaana halkaasi aan ku wareysanay qaar kamid ah oo nooga warbixinaya bal sida ay xawaashka halkan uga iibsadaan iyo ciidaha kala duwan ee keenta iyo Soomaalidu kaalintay ku leeyihiin meeshan waxay ku taallaa maad aragteenay xaafadda maxarada qabalaha saddexaad ee Diriraba ayay maad aragteen ka tirsan tahay waxay dhinacan ugu maad aragteen uga dhowdahay maad Shiniile ayay maad aragteen uga dhowdahay meeshan maad aragteenay urur ama maad aragteen dhalinyaro meeshan waxa iskala maad aragteen mahbarka xawaashka dira iskale iyaga maad aragteen meeshan gaar u leh xagan waxa maad aragteen ka baxa ama maad aragteen laga dira xawaashka Djibouti loo diray laga dira laba waqtina waa laga dira waqtiga maad aragteen Salaasada iyo maanta oo Sabti labada door ba laga dira xawaashka waadiga arkay waxa lagu diray maad aragteen isjiida lagu diraya dhamaan waxa la diraya xawaash qaybihiisa kala duwanaa waa la diraya sida qajadii basashi baradhihii tamaadkii waxyaabaha oo dhan baa la diraya waa group qof kastaba qaybtiisa uu ma aragteen ayuu saaranaya gaariga qof kastaba ma aragteen calaamad buu leeyahay saxarada lagu diraya qaar waxa lagu diraya ma aragteen madaabarada iyo bacaha baa lagu diraya qof kastana ma aragteen alaabtiisa intuu lahaa buu calaamadaysanaya mid kastaba calaamadii uu lahaa ayuu ku ma aragteen ku dhiganaya labada doorna way baxaan subaxdii ilaa ma aragteen mar waxaan la gaadhan habeenkii la gaadhan ilaa ma aragteen adu hadba sidoo gaadhigu dhamaado والله dhalinyaro badan oo ma aragteen shaqo abuur ka heshay way jirtaa dad ma aragteen alaabaha inoo keena oo ma aragteen ka keena haadka sare abdaabi wixii ka sareeya ama naasirad ka keena ayaa jira qaarna ma aragteen waxay ka keenaan dhagaale iyo ma aragteen gobolka ka keenaan qaarna waxay ka keenaan ma aragteen Shiniile iyo inta ma aragteen waaxiga ka keenaan dadku saawo shaqeystaan dhalinyaro badan oo ma aragteen ka shaqeystaan qaar ma aragteen alaabtii xamaalaan qaar ma aragteen gawaarida xirayaan qaarna waxay leedahay ma aragteen alaabaha ayay ma aragteen Djibouti u diraan waa ka meesha in kasta ma aragteen qaan ay leedahay mararka qaar ma aragteen alaabaha aad diraysid baa ma aragteen lagu soo dirin lacagteeda xagga Djibouti qaan baa marka soo fuulaysa mar ma aragteen bilaa qaan baa noqon adoo habba si yacna ma aragteen way dhaantaan shaqada السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ماشي waxaan ka shaqeynaa Sabtidii waxaan barnaam iyo Salaasada waa kaasde nooc walba meesha isku yimaada masaakiin kuwa haysta kuwa aan wax haysan qof walba u yimaada waa kaas
anu hawl waxaan ka haynaa de gawaadiduna ma rarna قيبت حمال كاتاي ما قيبت حواش كدريسات هاي ما ددك وكيلada waa tahay ما anu waxaan ahay wakiil oo waa la soo dirto qof baan u sii shaqeeya oka ha حواش حقو niga yimaada حواش ku nooga yimaada de in Oromia nooga yimaada okaas جبوت waa loo diraa ha ay saameynta bal ka waran dhinaca nolosha iyo sarif wallahi aad buu noogu adeegay waa la casarnay marba siin weyn waa kaas gabiya dhaka iyo gobolka xilligeena marmar bay noogu yimaadeen bashash iyo wax aad u tira yar ayaa marmar noogu yimaad waa kaas wallahi waxaan codsanaynaa in deegaanka bashash iyo wax walba xoog loo geliyo oo ma garanaysanay dadkeenu ay indhaha kala qaadaan oo qashid iyo baarood iyo dubi iyo kaaroog iyo wax walba ay noo beeraan ya macal avocado iyo wax walba inay beeraan indhaha kala qaadaan si aan iyaga uga soo iibsanay ya intaasaan deegaanka ku baraarujinay isla warbixinteena ayaan ku guda jirnay booliska federaalka dalka ayaa sheegay in 60 xubnood lagu tilmaamay argagixisada al-shabaab ka tirsan yihiin oo falal argagixisada deegaanka Soomaalida ka fulin rabay lagu riday xukun kala duwan oo isugu jiro xabsi daayim waxa maanta la xukumay xubnahaasi ka tirsan al-shabaab ee deegaanka Soomaalida weerar ku soo qaaday 2 sano ka hor xubnahaasi oo ka koobnaa 60 qof ayaa qaarkood lagu xukumay xabsi daayim halka qaarka kalena eedeysanayaasha 56 eedeysanana lagu kala xukumay 6 sano ilaa iyo 18 sano laba qofna waxa lagu xukumay 6 bilood xubnahan ayaa waxa ay yihiin kuwii ka soo galay deegaanka Soomaalida gobolada Afdheer iyo Shabeelle sanadii la soo 2 sano ka hor isla markaasina weerar kala duwan ka geysan rabay ee deegaanka Soomaalida waa sida uu sheegay booliska federaalka oo warbixintan ka soo xiganay isla warbixinteena ayaan ku guda jirnay magaalada Addis Ababa dabka kacayna ayaa la xakameeyay dabkaasi oo ka kacay bakhaar yar oo ku yaala xarunta dhimirka iyo waayeelka loo dhisayo dhismaheedu socdo guddiga dadamiska ee ka hortagga masiibooyinka maamulka magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in dabkan ka kacay bakhaar ku hoos jira dhismahaasi ay dhisanayaan ururka dadka dhimirka qaba iyo waayeelka isla markaasina